madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray fariisinta hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida Tukaraq waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutub ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiida Tukaraq. mudana madaxweyne ku soo dhawow. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wufuudda uu hogaaminayo ayaa kormeeray fariisinta hore ee ciidanka naftood horeyaasha ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiida Tukaraq Sool. mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka warramay qiimaha ciidamada qaranku ay ugu fadhiyaan jiritaanka Soomaaliland iyo sugidda ammaanka. hambalyo iyo duco iyo kalsoonaan ka sida Soomaaliland iyo guddoonka shaqada la isku raacsan yahay oo laga yaabo inaan dheef badan lahayn laakiin karaamo iyo ixtiraam iyo duco loo hayo bini'aadmina wuxuu hela karaama ugu weyn halka ugu karaamo weyn ee ummaddu isku raacsan tahay haddii ummadahoo dhan ta Maraykan ta Shiina ta Soomaaliland iyo tuwaliba waxa weeye ciidamada qaranka waayo ciidamada qaranka waa astaantii qaranka marka waxa weeye ciidanku awoodii qaranku sidaa garaado kasta ha ahaadee awooddaana waa wada leeyahay ilaa jaanka u sarreeya ilaa dabla halkaa joogto waxaad ku tahay calankii awoodii hawshaa gashaan ha ku caloliyoobina haddaad mararka qaarkood aragtaan guryihiina iyo dantiinoo dalacan ha ka caloliyoobina kuwa samaha aa gelaysaan iyo nafta aa huraysaan iyo dalka waxa u qabanaysaan ilaahay meel kale xisaabtaad ka siinaya ubadkooda ka siinaya ooriyahooda ka siinaya caafimaadkeeda ka siinaya if iyo aakhiradeedu ka siinaya markaas waa soo gootaan markaa dhibtaa qabtaan iyo dheefyaraanta iyo hawlaha jira marnaba iyo shaydaanku iduusuusi laakiin carruurta iskuullada waa qaaliyahay carruurta ciidamada xagga hore uga dhigdhaar waa ra'yigii guntan oo la geyn doona golayaasha xuquuqda askarta haddii la yidhaahdo waxaanu idinku ducaynaynaa oo idinku hambaliyeynaynaa oo idinku kalsoonahay inaa idinkoo naba doonaya dalkii daafacaysaan. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu iftiimiyey in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay nabad kula noolaato dalalka deriska ah. horta waxaanu nahay ciidan nabadoona oo aan cidda ku duulayn ee dalkiisu ilaashanaya oo wuxuu ku soo xadgudba iyo wuxuu fidqaada ka wada qabanaya waxaanu nahay ciidan aan cidda weerar ku ahayn waxaanu nahay ciidan nabad soo waday intii uu jirayba ilaa maanta la aasaasay oo dadkana kala ilaalinaya dalkana ilaalinaya walaaladaan iska soo horjeedo reer Puntland weerar kuma nihin ma nabcin waanu nabadgelinaynaa iyagana intaa leeg baanu ka rabnaa iyagana ilaahay inuu galansiiyaabaan ka rajaynaya waayo soo baahan sabab kale oo dhimaanta wax hadal lagu dhammayn karo oo geed hoosti lagu dhammayn karo waxay la tahay waa khaldaya ninka weerar ku galaya. madaxweyne Biixi waxa uu yidhi wixii gardarriya difaaca lagu yimaada ilaahay inuu ugu gargaarayo inuu istaafacay waayo nin qori kula soo cararaya dimaaq mari karo laakiin inagu waxaynu doonada waa ku dhammaysanayna dagaal uma socono dalka iyaga dhexdiisa waa nagu haysataan waa nagu hor joogsateen waa idiin fadhinaa weliba xabadbaa ku darsaadaha naga daayaanu leehay fariisa kudirna waa intaa qura dadka deegaanka walaaltinimo iyo wadatashi iyo Soomaaliland wadasaan wadnaa. wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo saraakiisha sare ee ciidamada militariga Soomaaliland ee jiida hore ee Tukaraq ku sugan ayaa madaxweynaha uga warbixiyay guulaha ciidanka qaranku ku tallaabsaday iyo qorshaha horumarkooda ku tacalluqa. nimanka mar waa cuqaal oo hadaanay dulqaad iyo maxaan ku raahdaa iyo karti iyo aanay muujin shacabka ay dadka la joogaan inay dadkooda yihiin nabadda iyo calamada qoyan oo inagu soo dhaweynayo kumaynu soo mareen intaynu soo maray waa waxay sii xaadheen oo wadda ay sii xaadheen oo iyagoo ka sii shaqeeyeen wey iyagana aad baan uga mahadnaqaynaa oo nugu bogaadinaya waa rag aaminsan waxay meesha u joogaan mas-uuliyadda saaran. sideedii bishii koowaad baa ciidanku degay dhowr dagaal baa ku dhacay dhowrkii dagaalna guul weyn bay ka soo hoyeen oo ciidanku wuu garanayaa wuxuu halkan u joogo inay tahay waajibaadkiisa ka mid ah oo ay ummadda Soomaaliland ku leedahay inuu fulinayo. mudan madaxweyne adigoo ciidamada soo maray wax weyn ka yaqaana aad baan kugu mahadinaynaa intii aad joogtay sidii wanaagsaneed ciidanka u taakulinayay iyo sidaad mar kastaba niyada ugu hayso. mudan madaxweyne ciidanka qaranku
xagga dagaalkoo keliya ma aha waa ciidan bulshada u la joogo dhaqan wanaagsan kula dhaqma mar waa samafal mar waxa weeyaan waa cuqaal oo xagga nabadgelyada cuqaal buu ku yahay kugu soo dhoweynay saaka halkii jiidda hore ee tukarraq si hambalyo iyo kal iyo laable annagoo gudanayna waajibaadka qaranka oo weli wax noo dhiman yihiin dalkii iyo dadkiiba aanaan gudan wixii aannu lahayn oo 60 kilomitir naga horrayso xuduuddii somalilan waannu ku soo dhoweynaynaa annana waa nabadgelyo qabnaa dalkan laanu joognaana si wanaagsan ayaa dadkanina noola nool yahay noola shaqeeyey waxay markii hore moodayeen markay ciidamadii noqon waayeen ayay waxa ay fahmeen in ay dantoodii aanu wadno macnaha 15 sanaanu joognay jiidan waxa weeye sanadkaanu halkaa joognay 2 dagaal oo adag baanu galnay dagaalkaanu ku jirnana waxa weeye waa mid maalin joogtaa mudane madaxweyne ciidanka iyo saraakiishu dhammaantood si wanaagsan oo kaliya laabooyay ku soo dhoweynayaan intaanu madaxweynaha Soomaaliland soo gaadhin fariisinta hore ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada Gambara iyo Tukarraq madaxweyne Biixi ayaa la lugayay bulshada deegaanka Tukarraq waxaanu la qaybsaday dareenkooda waxaanay cabireen sida ay ugu faraxsan yihiin inay madaxweynahooda deegaankoodii ku qaabilaan Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka